intii u dhaxaysay 1884 ilaa 1886 Ingiriisku wuxuu heshiisyo ilaalin la galay qaar ka mid ah beelihii deganaa Somaliland. Heshiisyadu waxay ku salaysnaayeen in Ingiriisku noqdo ilaaliyaha xiriirka dibadda iyo amniga xeebaha, halka beeluhuna ay sii wadanayeen maamulka gudaha, xeerarkooda iyo hogaankooda dhaqanka. Markii heshiisyadan la saxeexay kadib 1888 Ingiriisku wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay British Somaliland Protectorate, maxmiyadii Ingiriiska ee Somaliland. dalka Somaliland wuxuu ahaa protectorate. shuruucda caalamiga ah iyo rikoorkana way ku qoran tahay inagoo inay Somaliland ahayd dal protectorate. ugu dambeyn maanta oo kale 26 Juun sanadkii 1960 British Somaliland waxay ka qaadatay xorriyadeeda boqortooyada Ingiriiska iyadoo noqotay dawlad madax bannaan iyo sidoo kale dhulkii ugu horeeyay ee laga taago calan Soomaali leedahay. Talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga baxajnabi inaga maanta leeno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay. taariikhdani waxay ka mid tahay dhacdooyinka ugu muhiimsan ee sanad walba laga xuso Somaliland maadaama ay saldhig u tahay xornimadii ay Somaliland ka qaadatay Ingiriiska. Uscirka loo tuuraa dhulku kuma dhacay waana la isugu wadayay dadka inta badan habeenka ma bay seexanba iyo farxadii waxa yimid dadka ummadoo dhan oo eegaysa caalamka loo dejinay Ingiriiska madaxdiisina way wada joogeen barasaab oo horkacayo dabadna markay saacadu ahayd 6 iyo merid ayaa caalamka Ingiriiska halka laga dejiyay khudbad buu ka akhriyay barasaabka halka uu ku sagootay ummadda Somaliland kuna waramayo waxa Ingiriisku damacsanaa iyo xaalku noqday halka markii laga dhaqaaqay dadku waxay isku shubeen beerta xorriyadda oo la sugayay calanka laga taagi doono 12 daqiiqad. 26 Juun waa maalin lagu xasuusto halgankii xorriyadda laguna xoojiyo fahamka taariikhda iyo qiimaha madax bannaanida. Wati Ingiriiska la dooday xornimo laga qaatay loo saxeexay in Somaliland 26 Juun 1960 xornimada la siiyo. Wati garoonka Timcadde loo soo baxay. Wati maxaan ku raabaa Bamboy iyo diyaafad iyo maxaan ku raabaa dabaaldeg iyo kan nasiib kan nasaar barasaabadii iyo wufuudii laga soo diray Ingiriiska iyo madaxdii Somaliland ee markaas soo dhicisay xornimada Allah yarxam Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo intii badneed ee kale la socotayba halkii lagu salaamay lagu wareejiyay xornimadii lagu wareejiyay